injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cudoo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay shirkii magaalada Baydhabo ugu soo dhamaaday madaxda Soomaaliya in loogu saxay Puntland hub taasoo ujeedkeedu yahay inay kula dagaalanto Somaliland sida uu sheegay qodobo ka soo baxay waxa kamid ahaa in hub la siiyo magaalada qododan shirkin garowe boosas degan oo kula dagaalamaan waxay u yeelanayaan argagixisada hubkaasi waxa loo siinayaa waxa weeye inay naga nogla dagaalamo argagixisada meesha ka jirta ma jirto kuwii hore markii horena waxay dadka masaakiinta reer dig iyo milfla ah ee boosaasa u soo shaqo doontay bacdayaasha ku haysta ayay inta kala qabtan ilahaan shabaab baanu qaban online-na horena waa kuwii galmudug ciidamada Mareykanka ku soo hogaamiyay dhowr iyo 10kii loogu soo tababaray magaalada Beledweyne si ay la dagaalamaan dhalinyarada shabaab ay argagixiso ku sheegeen ay ku laayeen waxa weeye waxay caadaysteen inay ka macaashaan beentooda magaalada ilaa garow waxay ka sameeysan lacagtii burcadeedka waa nimanka ka suurta gashay inay burcadeed sameeyaan inay ilahan waa la dagaalamayna oo lacag lagu siiyo in maxaabiistoodii la soo qabtay ilahan anaga haynay oo lacag lagu siiyo ganad lacag sameeyay idna uma roonidin aan leeyahay maxamed siyaad bare wuxuu yiri ma jeerta waa wariiri waxa la ilaha inuu waxaan ilaahay dhaxon koreed hadduu guntiga ku galo koomeel buu ka qaniini wariiriga anaga macawis ugu dili doona insha Allah taala hadaan joogsid nabad baan doonina dadka Soomaaliya halka degan nabad baan rabnaa laakiin waxba iska cilna dadka ma doonto laakiin waxaan leeyahay reer Muqdisho hubka la bixinayo aan masoo kala sheegayo cawaaqibadii idinku dameen doonta sida idinku sana joogin guriga la idinku garaacay Cabdi Qaybil dili gaaray Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur lagu 5-6 qof reerkiisa horisood lagu dilay waa wake up call baan محمودين سلمان قرآن وصوصه injineer Faysal Cali Waraabe waxa kale oo uu sheegay in xaaladda gobolka Sool lagaga hadlayo golaha ammaanka ee qaramada midoobay arintaas oo ay dabada ka riixayso Soomaaliya arinta tukara anigu nabad baan ka rabnaa maanta waxa laga hadlayaa baleeyay Sool United Security Council yaa geeyay arinta yarayso ka Security Council iyaga geeyay waxa caddaatay in hadda ay dalkii Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen Cabdiweli ku dhigay iyo Farmaajo ay ku dhigeen waxaad ka garanaysaa shanta dowlad goboleed waxa gudoomiye u ah Cabdiweli madaxweynaha Soomaaliya maamulka Muqdisho waayo waa Farmaajo waxaanu sheegnaa xaaf hubka ashalay saxeexday adun baa lagu la dagaalamaya anagu waa iska celin karnaa injineerku waxa kale oo ka hadlay lacagta 1 milyan ee Soomaaliya ugu deeqday dadka duufaantu waxyeelaysay ee deegaamada Somaliland lacagtu waa lacag magac Soomaaliya lagu soo qaatay jeebka magaalada aabi waaqna ka muuqeynay farmaajina ugu muu dhiman waa lacagta magac Soomaaliya oo siinna la siiyo dadka la gaarsiiyo laakiin wax aabaa lagu qabnay waa waraabe ciidan oo qaban adna u tuur Faysal waxa kale oo ku baaqay in gacan adag lagu qabto dadka si hurinayo colaadda Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag. Waxaan taariikhdeynaya dadka xabad joojin sameeyay. Waxaan taariikhdeynaya garaad jaamac garaad Ismaaciil. Garaadku waa ka nabadda ka shaqeynaya. Eeydi Soomaali meel joogto garaad baa. nin macawis inta haga camaamo yar saartay marmarkii islaanti bariida islaan xaaskiisa soo qaatay. Idin caaqiliyo iyo sultan waxa laga ganaya amalkiisa laga ganaya laga xabad joojin sameeyay waa taageerina waa wanaajina waa hambalyanina ragga dabka shidiya ee ku hadlaya TV ka hadlaya ee kicinaya qasiya nabadda ee isku sheegaya dhaqameed ogaan dhaqameed dawladdu waa soo qabataa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee injineer Faysal Cali Waraabe ayaan weydiinay bal inay jiraan dadaalo lagu dhexdhexaadinayo Puntland iyo Somaliland si loo qaboojiyo dagaalka
هذا ماشي عيد الله لا متشفت ولا طبعين لا هذا ماشي نيجي قبيل يا طلايا يا ريه بلا إلى ورد إيه بقى على صويعة إلا كسمايا على صويعة وقبيل تعال قبيل الدولة دوم يلا هذا الكلام وقضية السجى هو هذا قعنته حقوق شرع يسوي حكي دجال قبيل بوكي لكن ده أكثر لكن توبي ولا حكمان مقال لكن هو أنت وحوي دو فرماتش هوي دو ما ممكن فرماتش سمي أورنين ما ممكن ده أي سامي سنجلوبي يبغى سامي أورن وحن حسن معنا الدولة ده فرماتش ده حكمي سأنا وده هذا السوداني الصومالي قتش علينا سوري إنه حسن قلايد تلفزيون كون كيبل هرقيسا